Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali iyo xisbigiisa talada haya ayaa la hardamaya awoodo qarsoon iyo kuwa muuqda oo ku haysta talada ugu sarreysa dalkaasi. Waxaa loolanka ugu culus u dhacay labadii sano ee la soo dhaafay. 3 sano oo xukunka haya waxa uu ka badbaaday weeraradii ugu badnaa ee lagu qaado qof qabta xukunka ugu sarreeya dalka Itoobiya. Waxaana ay isugu jireen afgambiyo, dilal qorshaysan iyo waliba weeraro toos oo wali qaar ka mid ah la xarbinayo. dhacdooyinka ugu dambeeya ay shaaciyeen sirdoonka dalka Itoobiya waxa lagu cadeeyay in la fashiliyay isku day afgambiyo oo la doonayo in laga fuliyo gudaha dalkaasi. taladana lagu dhaafiyo Abiy Ahmed waxaana sirdoonku ay shaaciyeen warbixin ay ciwaan uga dhigeen arrinta Addis Ababa ka aamusi mayno. faahfaahin dheer ayaa laga baxshay oo ku saabsan isku dayga cusub ee magacaasi watay. dadka la eedeeyay waxa ku jira siyaasiyiin caan ah, saraakiil military, booliis iyo noocyada ciidamada Itoobiya oo shaqada laga cayriyay, shaqaale rayid ah, wariyayaal iyo khubaro kala duwan. waxa ay diyaarsadeen dhowr nooc oo ku wajahan sida xukunka ay u qabsan lahaayeen ayaa lagu yiri warbixinta. sirdoonka Itoobiya waxay shaaciyeen inay hayaan dhammaan cadeymaha muujinaya abaabulka oo ay ku jiraan dastuurkii ay kooxdan u diyaarsadeen kana kooban 85 bog inay ku maamulaan Itoobiyada qowmiyadaha badan ay hayaan lacago jagooyinka sida ay u qaybsadeen iyo nooc kasta oo howlgalladooda la xiriiray. in la qabtay isgaarsiin gaar oo ay ku wada hadlayeen iyo saxaafad gaar ah ayaa lagu tabiyay warka TV-ga dowladda laga baahiyay ee ay soo saareen sirdoomada kala duwan ee ciidanka Itoobiya. sida ka muuqata warbixinta sirdoonka shabakadan doonaysa ay la wareegaan awoodda Itoobiya waxa ay ku sugnaayeen gudaha iyo dibadda dalkaas. waxay adeegsanayeen tallaabo kasta oo ay talada ku qabsan kareen iyadoo waliba ay u waday si qarsoodi ah oo farsamaysan. jaantusyada xogta waxa kaloo ka muuqata in lagu ogaaday xiriir ay la sameeyeen qaybo ka mid ah xubno dowladda u shaqeeya oo ay kala hadleen fulinta qorshaha ku saabsan afgambigooda, laakiin lama sheegin cidda ay la wadaageen macluumaadka magacyadooda. Addis Ababa waxay xogtu cadeynaysaa in lagu qabtay hub, qalabka isgaarsiinta tooska ee dowladdu aysan xakamayn karin iyo qalab warbaahineed oo dhammaantood lagu eedeeyay inay fulinta qorshahan qayb ka ahaayeen. sirdoonka Itoobiya waxa ay xigteen hadallo ay sheegeen in kooxdan ay baahiyeen iyagoo gabaad ka dhiganaya arrimaha ku saabsan qowmiyadda Amxaarada. waxa la cadeeyay qoraalka inay iska dhigayeen kuwa doonaya in Itoobiya u hiiliyaan balse ay ka soo horjeedeen sharciga. doorashada 6aad ayaa lagu sheegay in carqaladeynayeen kooxahan kuwaas oo abaabulay dhammaan ficilo la diyaariyay. waxaa la tabiyay in gudaha Addis Ababa la keenay 300 oo qof oo hubaysan oo dhalinyaro ah si ay rabshado u sameeyaan. isku dhacyada qowmiyadda Amxaarada iyo qowmiyadaha kale waxa la xaqiijiyay inay ka dambeeyeen kooxahan sida lagu xusay xogta sirdoonku ay baahsheen. tirada dadka guud ee la eedeynaya laguna qoray magacyadooda xogta sirdoonku waa 1593 qof oo ku kala sugan goobo kala duwan. waxa ugu badan ama hogaaminaya xubno ka soo horjeeda siyaasadda Abiy Ahmed kuna sugan Mareykanka iyo Jarmalka. General Yohano Jambera oo ah konton jir ka tirsanaa ciidanka Itoobiya shaqadana la sheegay in looga celiyay falal anshaxnimo xumo ayaa ka mid ah xubnaha abaabulka ugu badan ka qayb qaatay. waxa uu ururiyay xogta ciidanka saraakiisha Itoobiya si ay u fududaato doonistoodu. taliyo hore Mulugete Tesige Tilahun kana tirsanaa ciidanka Itoobiya ayaa ka soo muuqday liiska. waxaa lagu haystaa inuu xiriir badan la sameeyay General Jambera oo abaabulka ugu weyn lahaa. labada nin waxa ay ka sinaayeen inay ka bixeen Addis Ababa una tallaabeen deegaanka Amxaarada. labada qofba waxay hore uga mid ahaayeen ciidanka. waxay xiriir la sameeyeen ninka lagu magacaabo Tashala Kabada Ido oo ku sugan Jarmalka. xogtu waxay cadeynaysaa inuu ahaa maskaxda dibadda ee hawshan. waxay isweydaarsadeen macluumaad ku saabsan dhammaan dhacdooyinka ay qorsheynayeen. waxa ka mid ah in la asaaso urur dhaqaaqa Amxaarada loona ekaysiinayo inuu ka xun yahay dhibaatooyinka qowmiyaddaas ay wajahayso. Professor Abere Meshasha ayaa loo haystaa inuu yahay maskaxdii ka dambeysay qoridda dastuurka. waxaa gudaha Addis Ababa ku daabacay Nadow Saude. waxaa lagu qabtay 1,000 nuqul oo ka mid ah dastuurka isagoo u qaybinaya kooxaha la abaabulay. xogta sirdoonka Itoobiya waxaa lagu qeexay erayo ay ku muujinayaan in qaar ka mid ah xisbiyada u tartamaya talada Itoobiya doorashada 6aad, xubno xilal ka haya laamaha amniga ee dalka iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee BB ay doonayaan in qorshahan la fuliyo. urur samafal oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka aadanaha ayaa la sheegay in magaciisa lagu soo geliyay agabyo waxbarasho laakiin lagu dhex qariyo hub la doonayo in loo adeegsado qorshaha.
balse la fashiliyey si canshuur dhaaf looga dhigo agabka waxbarasho inuu yahay qalabkan. 15 qof oo ay ku jiraan tuhmanayaasha ficiladan lacago qalabka ay adeegsanayeen qoraallo uu ka mid yahay dastuurkooda iyo dhammaan xiriirooda ayaa hadda ku jira gacanta ciidanka Itoobiya sida lagu sheegay war-saxaafadeedka wadajirka ee ka soo baxay ciidanka guud ee Itoobiya. 12 qof oo kale ayaa warbixinta lagu cadeeyay in Itoobiya u jirtay warqadda soo qabashada lana wadaagtay hay'adda booliska adduunka Interpol kuwaas oo Itoobiya ay rajaynayso in gacanta loo soo geliyo si maxkamad loo saaro. guddiga wadajirka ee Itoobiya shaaciyana xogtan waxa ay sheegeen in ka dhignayd isku daygii ugu weynaa ee noociisa oo gudaha iyo dibadda isku xiran lana abaabulo. dalal aysan magacyadooda sheegin ayay sheegeen ka shaqeynayaan burburka Itoobiya, balse isla qoraalka waxay ku sheegeen inay haystaan haliyeeyo ka hortagi kara tallaabo kasta iyadoo ammaan la huwiyey shacabka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay fashilinta ficiladan. ma aha markii ugu horeysay ee sirdoonka Itoobiya ay shaacinayaan ay ka hortageen isku day afgambi oo la doonayo talada in lagu dhaafiyo Abiy Ahmed ka xukuumay Itoobiya. ማንም ሰው ስልጣን መያዝ የሚችለው በምርጫ ብቻ ነው። ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.